بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya walaalayaal sida aad nooga barateenba waxa idin soo gudbinaa muuqaalo ku saabsan guryaha iibka ah sidoo kale muuqaalo ku saabsan dhismaha maanta muuqaalkeena waa guri iib ah ku soo dhawaada gurigan iibka ah waa gurigaas ganjeelo madowga ah ee aad u jeedaan waa guri dhisan waxaa ka dhisan dabaq hal biyaano ah biyaanada hoose ah ama dadka qaarkood siday u yaqaanaan dabaq suge ka faa'iideysi wacan gurigani waa iib waa guri maasha Allah ah si qurux badan loo dhisay dhaxka dhis ah waad aragtaan derbigaas waa derbigii wareega guriga ku wareegsanaa wareegiisa oo arki doontiin insha Allah dhinacyada kale xataa guriga noocan oo kale waa dhaxka dhis waxa loogu talagalay qoysaska maasha Allah ilmaha barxadan ay kugu ciyaarayaan banaanka iyo halistaas ma arkayaan xitaa banooni waxba ku ciyaari karaan marka maasha Allah waa guri qurux badan haddii aad doonto hotel yar waa ka dhigan kartaa xafiisyo waa ka dhigan kartaa wareegiisa kulligiisna aragtiin ayaa filayaa dhulka uu ku fadhiyo gurigan haddii aan ka hadlo waxa uu ku fadhiyaa dhul cabirkiisa uu yahay 20 lagu dhifto 20 ama finti barfinti waa dhul weyn dhulkan oo kale laba guri waxtaa waa laga dhisi kare laba filo maasha Allah laakiin sidan ayuu ku sii qurux badan yahay qoys weyn ayuu hada si fiican u qaadaa oo degi kara haddii aan ka hadlo qolalka uu ka kooban yahay gurigan wuxuu ka kooban yahay 5 qol iyo sidoo kale qol service ah laka oo jeedaan qaybo badan oo kamid ah mana dhisin sidoo kale waxa uu leeyahay 3 musqulood maasha Allah waad aragtaan waa guri si cajaa'ib ah loo dhisay dhismihiisa aan la hakranin ka faa'iideysi waa walaal la soo dhawaada banaanka derbiga xataa silig ayuu leeyahay ku wareegsan meesha waa barando si qurux badan waad aragtaan barando shub ah maasha Allah guriga albaabadiisa waa alwaaxas aad aragtaan waxaa la dhihi karaa gurigani waa guri dhinac walba laga dhameystiray aan u soo laabana meesha uu ku yaalo ama xaafadda uu ku yaalo gurigan waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho si gaar ah waxa uu sii yaalaa degmada Dharkeenley oo aad wada garanaysaan kamid ah degmooyinka waaweyn ee magaalada degmooyinkii hore ee gobolka Banaadir xilligii dowladii Maxamed Siyaad Barre xaafad ahaan xaafadda Dharkeenley ugu yaal waxa la yiraahdaa xaafadda Ceel Dheere waxa uu dhow yahay Saldhig Galbeed ama marka aad soo dhaafto Bakay Madow uma dheera haddii laamiga ka baxa macmacaanka ee aad Saldhig Galbeed iyo dhankaas waa uu dhow yahay booskaani laamiga waxa uu jiraa kaliya 21 boos waxa uu noqonayaa booska 21aad waa 2 block camal qiyaastii waxa uu sii dhow yahay masaajidka Ceel Dheere masaajidka weyn ee dadka xaafadaas aad u yaqaanaan iyo dadka magaaladaba intii taqaano masaajidka Ceel Dheere waxa uu jiraa 3 boos waxa uu ka soo xigaa dhanka iyo laamiga maasha Allah gurigani waa guri ku yaala meel istiraatiiji ah xaafad camiran haddii aad doonto waad kireysan kartaa maasha Allah lacag fiican ayaa ka soo galaysa sidoo kale haddii qofku u baahan yahay inuu sii kordhiyo guri dhismihiisa oo ilaa xad macquul yahay dabaqyo kale ayaa saari kartaa dabcan injineerada hawshaas ku shaqada leh ayaa ka shaqeynaya shirkadda Dallis Real Estate waa kamid adeegyada ay qabato howlaha dhismaha la xiriira marka walaalayaal soo dhawaada waa fursad qaali ah
كفائديسي وعن gurigan waa guri si casri ah loo dhisay wax ka maqan aysan jirin inta waxa uu leeyahay haantii biyaha ee guriga biyaha u keedinaysa ugu dambeyn qiimihiisa hadii aan ka hadalno qiimihiisa waa macquul waa uu jaban yahay gurigan oo saas u weyn waxa la iibinayaa $200,000 Mareykanka ah waa boos weyn oo finti barfinti ah lacagtaas hadii la fiiriyo waa yar tahay laakiin waa Janis marka waxa rajeenaa inaad ka faa'iideysataan waa kuma sitin daawashada muuqaalka ugu dambeyn kanaalka subscribe noo saar